xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo maanta isku yimid kalfadhiga koobaad kulankiisa 11aad ayaa waxaa looga hadlayay laba ajenda oo kala ah dhameystirka doodii mooshinka laga gudbiyay gudoomiye Cali Gacal Casir iyo cod u qaadista mooshinka waxaa shir gudoominaya gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka maamulka galmudug Xareed Cali Xareed waxa uu faahfaahin ka bixiyay dhameystirkii doodii mooshinka laga keenay Cali Gacal Casir oo dood kadib ay soo gabagabowday doodii maaragtay looga keenay codka kalsooni kala noqoshada gudoomiye mudane Cali Gacal Casir dadkii hadda xildhibaanada halkan ka doodayna dhammaantood intaan ka ahayn hal xildhibaan ay soo jeediyeen in maaragtay maanta gacan loo taago si uu maaragtay codka kalsoonida hadduu helano xasaab ku guulaysto hadduu waayana uu noqdo xubin ka mid ah xubinada xildhibaanada baarlamaanka galmudug waxaan rabnaa in maaragtay si democracy ah aad ugu codaysaan iyadoo qof walbaba uu gacanta taagayo si loo arko inay tahay mataqaanaa gacan haafaysan noqon qofkii diidan waa diidi karaa qofkii ka aamusan waa aamusi karaa qofkii kalena aysan noqon in dadka qaarkoodna ay laba gacmo taagaan waxaa loo baahan yahay cod sax ah inuu halkaa ka dhaco oo xalaal ah aad baan u mahadsantihiin kooramka xildhibaanada ayaa waxa ay ahaayeen 147 xildhibaan waxa cod gacantaag ah loo qaaday Cali Gacal Casir 146 xildhibaan ayaa ogolaatay hal xildhibaan ayaa diiday Xareed Cali Xareed gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka maamulka galmudug ayaa shaaciyay codkii loo qaaday Cali Gacal Casir 147 waxa uu codeysay in codka kalsooni lagala noqdo 146 hal cod oo ka midna waa diiday saas ayayna maaragtay ku tahay ansax oo kuwa ay gudoomiye aad ayay mahadsantihiin waxaan rabaa inaan halkaan idinkaga sheego insha allahu tacaala ka guddoon ahaan ayaa idila soo socodsiin doonaa maalmaha soo socda guddiga doorashada oo la qaban lahaa iyo qaabkay u dhici lahayd annagaa idila soo socodsiino insha allahu tacaala qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka galmudug oo maantay codka u qaaday xilka qaadista gudoomiye baarlamaanka maamulka galmudug Cali Gacal aad iyo aad ayay maanta u mahadsan yihiin in ay gudoomiyihii hore kala noqdeen kalsoonida markaas waxaan jecelahay inaan halkan uga diro baaq dhammaan dadweynaha reer galmudug meel kasta oo adduunka ka joogaan kii fadhiya ha istaago kii hurda ha kaco waayo cid u maqan ma jirto dadka reer galmudug waa inay gacmaha isqabsadaan waa inay wadankooda dhisaan maanta galmudug meel kasta oo ka mid ah ma jiro meel garoon leh waxaan maqlaynay ayaamahan iyadoo la leeyahay mooshinta galmudug waxa waay waa canaan waxaan rabnaa markaan u sheegno dadkii dhaaya waa canaan inaysan galmudug mooshinta aysan dhahayn aysan canaan ahayn ee taa mid daba waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa baarlamaanka sharafta leh ee galmudug maanta heerka ay u tilaabsadeen waa wax aad u muhiim ah loona baahnaay muddo badanna ee soo jiidan ay ku jirta xaaladda galmudug waxaan u sheegayaa reer galmudug meel walba ay joogaan inay gacmaha isqabsadaan danahooda gaarka iyo ay fiirsadaan aysan qofna aysan sugin hadda kadib waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa xilka qaadista maanta lagu sameeyay gudoomiyaha baarlamaanka Cali Gacal Casir aad iyo aad ayaan u soo dhaweynayaa galmudug wuxuu codka kalsoonida u qaaday gudoomiyihii hore mudane Cali Gacal Casir taasna si aqlabiyad saaxiq ah oo 146 xildhibaan oo kooramkii 147 ah ayaa lagu riday taasuna waxay ku tusay in baarlamaanka galmudug uu diyaar u yahay shaqadiisa inuu qabsado iyo inuu caqabad kasto galmudug ku aadan macnaha inuu ka wareejiyo diyaar u yahay marka waa soo dhaweynaynaa waana wax qabad aan bulshada ku metelayno Cabdilfataax Maxamed Axmed galmudug TV Dhuuso Mareeb